السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيار ميل بؤدونيدا دعالة كجوكتان كسو دوادا مركالة يا صاف تي في فضلا هادي آدان جانلك سبسكرايب نوصار هادي آدي لسعوتين هادي آدو ماتسان تهاي كسو دو وركينا مانتا هالكان أنكو وهايو أنكو باللابي أرسنال يعني إياريهان كأتقانين سيس فابريغاز إياريهان أرسنال أكاديمي مارتي سو غالي سو مري yaa kasoo baxay graduation kasoo sameeyay 2003 asoo ilmo yar oo 16 sano jir ah ayaa maartay cunuga Barcelona Academy laga soo qaatay Sevenga keensaday Arsenal Academy-geedu ku daray academy-gu soo maray Invincible-kii uu soo gaaray yaa oo maartay season-ka qaybtii dambe wax uu ka ahaa qayb uu ka ahaa legend-kii Arsenal ciyaaryahanka Chelsea ayagana waa sheegtaan inuu legendkooda uu yahay laakiin xilli aad u qurux badan ayuu Arsenal maartay ku soo qaatay labada kalaaba legend waa uu yahay waayo kanna waa Invincible-kii waa ugu jiray Chelsea Champions League ayuu la qaaday sidoo kale wuxuu koob la qaaday Barcelona uu aaday intuu Arsenal ku soo noqday haddana uusan ka tagin Chelsea uusan aadin ciyaaryahanka waa retire gareeyay Monaco u dambeysay markii hadda u dambeysay inkasta oo coaching staff uu sameeyay qaabka wax loo coach gareeyo yaa uu maartay macallin uu noqonayay waxa maqlay sidoo kale projectiyo Arsenal oo ka waday laftirkeeda oo sanadihii u dambeeyay maartay macallinimada halka ayuu ka baranayay ciyaaryahanka horta waa retire gareeyay Cesc Fabregas maartay waa retire gareeyay ciyaaryahanka labaad ee inuu kugu xijinayo maanta oo kale 2019 qofkii xasuusta mooyaane Arsenal waxa ay saxiixday Gabriel Martinelli 40 sano Arsenal uu joogay maanta ay u dhamaatay ciyaaryahankaas waxa dadka dhan ku wada xasuustaan markii la dhahay Gabriel Martinelli dhahay Arsenal soo saxiixday 6 milyan ka bixisay qof war u hayay meel uu ka imaaday iyo hal uu joogi jiray ma jirin si loo joogo waxa la maqlay Arsenal cunug Brazil ka keentay division-keeda ka soo dhaxbixisay way keentay maxaa ka dambeeyay hadee 100 milyan oo suuqa maanta ka yahay garab Premier League laga cabsado waayo teamku waaweyn ee ka baqaan coach walba afur iskaga hayo taas waxay ku cadeynaysaa saxiix walba oo sameeyso qasab maaha inuu noqdo Declan Rice oo kale ina 100 milyan ka soo bixiso ina 105 milyan ka bixiso ina 2 milyan ka bixiso maartay ina 200 milyan ka bixiso wax maartay difference ay keenaysa malahan ciyaaryahanka marba haduu fiican yahay uu fiican yahay whether you pay marka soo gadanaysid lacag fara badan ama lacag yar labada ciyaaryahan oo kuwaasa ninkan 40 sano Arsenal uu joogay ayuu dhameystirtay wararkeena kale hadii aan u gudubno sida ogtihiinba Arsenal waxay ku howlaneed dhameystirka heshiiska ciyaaryahannadan waa Declan Rice iyo Timber Arsenal waxa leeyahay ciyaaryahanka obviously holle ay ku maqnaayeen weekend ba kulligood waa soo wada noqonayaan Arsenal waxa leeyahay weekend hadda maartay bilaamo waxa laga yaabaa in ay maartay labada kelima ahaan afar saxiix ay sameeyso saynayada waa arki doonaa kulli horta laba waa banaanka Declan Rice asaga waxa leeyahay caafimaadkiisa uu maray waxa dhiman kaliya inuu imaado arinta la dhameeyo lagu dhawaaqo dabeedna oo documentary yar laga sameeyo sidii Kai Havertz oo kaleete Timber sidoo kale ayadii Arsenal meel fiican bay taagan yihiin heshiiska waa artay wali wada hadalkiisa waa lagu wada jiraa marka isna waxa dhiman in asagana ninkan intii gees loo dhigay asagana lahaye adigana diyaar galow marka ciyaaryahanada labada ciyaaryahanba weekend in lagu dhawaaqo ayaa maartay la rajeynaya sidoo kale Arsenal waxa leeyahay inta kuma ekaan doonto oo maartay ciyaaryahanna kale ayay sii raadinaysaa oo khad dhex oo isbeer ah ay sii raadinaysaa Tchouaméni ayaa kamid ah ciyaaryahanada ay ku hayso Romeo Lavia ayaa kamid ah oo loo badan yahay inay saxiixi doonto maartay Arsenal marka khad dhexe ay doonaysaa in ay ku soo darto khadkeeda dhexe maadaama uu Partey uu baxayo Granit Xhaka uu maartay Declan Rice kaliya dhawaaqiisu ku xiran yahay asaga saad loogu dhawaaqo waa ninka waa sii deynaya
waayo asaga waxaa lagu xiray in Declan Rice la helo kadib uu fasaxay, laakiin Partey asaga caadi waa loo fasaxay, waxba laguma xirin. marka ciyaaryahanka asaga unba hadda go'aan laga sugayayo is adkeenayo mooye Arsenal maartay ciyaaryahanka inay iibisa diyaar ay u tahay. sidoo kale Arsenal waxaa la leeyahay waxay maartay isha ku haysaa laba ciyaaryahan oo labaduba Man City oo ciyaaraan. ciyaaryahanka koowaad waxa weeyaan waa right back uu ciyaari jiray Manchester City, Joao Cancelo weeyaan. Arsenal waxaa leeyahay ciyaaryahankaasba ayay muujinaysaa maalmahan in ay daneynayso in maartay suuqa ay ka fiirfiiriso. ciyaaryahanka Arsenal waa asana isha ay ku haysaa, waxay is leedahay maartay option ay u baaraysaa waa leeyahay ay ku saxiixi karto. sidoo kale Arsenal waxa ay wararku sheegayaan maanta in Laporte ay raadinayaan difaaci isna left footed ka ahaa bidixlaha ahaa maartay waa taqaana left footed legend waa asaga laftirkiisa ciyaaryahan weyn waayo. Man City difaaceedii hore inta uusan injariyada u bilaabin sanadkii u dambeeyay ninka gadaal u hayay ayuu ahaa. ciyaaryahanka ay Arsenal waxaa leeyahay ay tusaysaa isna inay raadinayso ay suuqa ay maartay listiga ciyaaryahanada ay raadinayso oo kamid yahay. sidoo kale waxa Arsenal ilaa hadda toos uga tagay ciyaaryahanka idin sheegay Ainsley Maitland-Niles, sidoo kale Pablo Mari asna 6 milyan oo heshiis Monzogii kolka hore uga maqnaa amaahda ayuu maartay si permanent toos ugu biiray. halka ayuu ka dhacay ninka waa tagay. ciyaaryahano kale oo Arsenal u dheerana runtii waa la rajeynayaa iyaguna in ay baxaan oo maartay kalaamka ay ka daba dhamaadaan. waxaa kamid ah Pepe oo kale. Pepe wax naga qaataa ninkan 75 milyan ka soo bixinay, hataa nin 10 koo noo celiyo waan ka laanahay ninkan naga qaato. marka ciyaaryahankaas isna in uu baxo ayaa la rajeynayaa sidii Arsenal si ay yeeshaba ciyaaryahanka waa diraysa horta asaga ka joogi maayo. sidoo kale Arsenal hadda ciyaaryahano badan ayaa loon oo maartay uga soo noqonayo. Balogun ayaa soo noqday, Lokonga ayaa soo noqday, waxaa soo noqday Marquinhos oo maartay Braziliankii garabka ahaa. inkastoo aan jeclaan lahaa ciyaaryahankan in sanadkan la siiyo minute in laga siiyo Premier League iyo Champions League labadaba. waxaa kale oo soo noqday cunugii Aston Trusty asna waa uu soo noqday. marka ciyaaryahano badan ayaa Arsenal sanadkan u jooga oo maartay suuqeeda waxaa leeyahay Arsenal labadan weey soo socda aad bay busy u noqon doontaa. wax ay dirto ay xaaqdo iyo wax ay keento ayay noqon doonaan. marka wararka suuqa wixii ka soo gudbanaado akhyari waa in la soo socodsiinaya. sidoo kale waxaa jiro war aan maartay aan idan kala gabanayo in idin sheego waayo ma bii aaminaysan. ma hadda waxaan dhihi karaa inaan dad soo hor fariisto Arsenal aan Mbappe raadinayso 250 milyan bay bixin rabtaa. ma waxaas idin sheegi karaa walaalayaal waxaas suuq lagu wadaay wararkaas runtii aad bay suuqa ugu soo badanayaan. ciyaaryahanka waxaa leeyahay kuwa qaar waxay leeyihiin Arsenal hadii uu ciyaaryahanka ay baac ay maartay la soo dhigo oo PSG inay iibisa ay damacdo oo ciyaaryahankiisna uu ogolaado Arsenal inay tuurato ay diyaar u tahay kisteeda ay isku baraawayso. sidoo kale waxaa leeyahay ciyaaryahanka haduu free noqdo Arsenal ayana ciyaar waxay ka mid noqon doontaa tiimka tartami doono. marka warkaasna waa jira suuqa ayuu ku jiraa. asaxaabtii khiyaari wixii soo gudbanaado waa in la soo socodsiin doona. hadana waxa idinkaga tagayaa sida nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. wixii fikirkiina qaybta commentiga ayaa noogu reebi kartaan.